halkuu ku dambeeyay jilaagii muslimka ahaa ee caanka ahaa ee la odhan jiray Fardiin Khan. Jilaagan oo dhowr iyo 10 sano ka maqnaa shaashadaha. Haddaba jilaaganu miyuu ka fadhiistay filimaanta? Maxay tahay dhibaatada soo wajahday jilaagan ee ku kaliftay inuu filimaanta ka fadhiisto? Miyuu dib u soo laaban doonaa oo filimaantii uu matali doonaa? halkuu ku dambeeyay jilaagii muslimka ahaa ee caanka ahaa ee la odhan jiray Fardiin Khan. Jilaagan dad badan oo idin kamid ah way garanayaan dadkii filimaantii hore iyo filimaantii dhexe daawan jiray. Jilaagan wuxuu ka soo muuqday filimaan badan. Haddaba jilaagan waxay walaalayihiin jilaaga caanka ah ee la yiraahdo Said Khan. Jilaagaas oo isaguna ka soo muuqday filimaan badan. Waxa uu ka soo muuqday filimkii caanka ahaa ee la odhan jiray Mainhun oo waliba uu Shahrukh Khan matalayay. Waxa sidoo kale filimka matalayay Sunil Shakti. Haddaba jilaagan maxay tahay dhibaatada ka hor istaagtay inuu filim jirista uu sii wado? Jilaagan caanka ah ee Fardiin Khan waa jilaa muslim ah. Jilaagan ayaa faahfaahiyay sababta ku kaliftay in muddo 10 sano ka badan uu ka maqnaado shaashadaha maadaama uu lahaa taageerayaal aad u badan. Jilaagan ayaa sheegay inuu soo maray marxalado adag kadib geeridii aabihii Firuz Khan oo uu ku dhacay kansalka sambabada 2009kii. Jilaagan ayaa dareemay cabsi badan, noloshiisana way adkaatay. Jilaagan xaaskiisa Natasha ayaa waqtiga iyaduna soo martay xaalad adag oo caafimaad darro ah. Waxa kaloo jilaagu uu sheegay 2013kii markii ay inantiisu u dhalatay inuu aad ugu riyaaqay, waxa uuna go'aansaday inuu waajibaadka aabanimo u guto oo jirista filimada uu iska daayo. Jilaaga caanka ah ee Fardiin Khan ayaa shaashadaha ugu dambeysay markuu soo matalay filimkii caanka ahaa ee la odhan jiray Dulha Mil Gaya. Filimkaas oo uu la matalayay Shahrukh Khan. Waxa sidoo kale la matalaysay Sushmita Sen. Waxaana la daawaday filimkaas 2010kii. Intaa wixii ka dambeeyay lama arag jilaaga. Jilaagu waxa uu sheegay geeridii aabihii kadib in noloshu ay ku adkaatay oo caqabada adag ay soo wajaheen. Haddaba jilaaga ayaa wareysi siiyay Bollywood Hungama. Waxa uu yiri fikradan qaatay may ahayn mid khaldan. Kadib markii aabahay uu geeriyooday waxaan u baahday waqti fasaxa. Waxaan soo maray waqti adag, noloshayduna way adkaatay. Taas ayaa igu kaliftay inaan ka maqnaado shaashadaha. Haddaba jilaagan Fardiin Khan ayaa sheegay inuu mar kale ku soo laaban doono shaashadaha oo mar kale la arki doono waa aflaan cusub uu soo matali doono. Haddaba jilaagan maxaad ka xasuusataa aflaantiisa ma ku soo gaadhay filimada? Haddaba jilaagan sidoo sheegay waxa uu soo maray nolol adag, waqtiguna uu ku adkaaday maadaama xaaskiisuna ay xanuunsanaysay oo ay uur lahayd. Haddaba asxaabteeda qaaliga waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga insha Allah.